مسؤولينta ahlu sunna wal jamaa ee koonfurta Soomaaliya ayaa bogaadiyay howlgallada ka dhanka ah maleeshiyaadka argagixisada ah ee al-shabaab oo ay wadaan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyaga oo si kulul u cambaariyay dhibaatooyinka ay ku hayaan bulshada maleeshiyaadkaasi. Sheekh Cabdiraxmaan Axmed Al-Ansari iyo Sheekh Isxaaq Xuseen Mursal Geesdheere oo warbaahinta kula hadlayay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay arrimahaasi. waxa weeye waxaan u mahadcelinaynaa madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya sida ay siyaasadda dalka wanaagsan ee u wadaan ee u horumarinayaan aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. ilaahayna waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu la garab galo sida ilaahay raaliga uu ka yahayna ilaahay uu waafajiyo mar walba. siyaasadda dibadda iyo siyaasadda gudaha waxay u socotaa oo mas'uuliyiinta dalka ay u wadaan si aad iyo aad aan ugu faraxsanahay haddii aan nahay culimada ahlu sunna wal jamaa ee Soomaaliya annagoo la qaybsanayna in badan oo shacabka Soomaaliyeed kamid ah intiisa badan waxaan ka tacsiyeynaa xasuuqii ka dhacay habeenkii dhaweeto habeen hore hoteelkii la dhihi jiray bisa xasuuqii ka dhacay oo shacabka masaakiinta lagu xasuuqay waan ka tacsiyeynaa. waxaan ka tacsiyeynaa cadawgaas oo xasuuqay waxaan kaloo ka tacsiyeynaa xasuuqii ka dhacay gobolka meesha la yiraahdo maamulka maamul goboleedka Puntland lagu geystay ummadda Soomaaliyeed halka joogtay lagu geystay xasuuqii foosha xuma ayagana waan ka tacsiyeynaa wixii ka dhacay. madaxweynaheeni waaye ra'iisul wasaaraheeni waaye may baan ka baaqane oo in sheegane inay ahlu sunna ata gacanta midig dowladda gacanteeda midig inay ata maadaama asaasada dagaalkii bala Ramadan hadii lama dowladda dagaal ka baaqda in la galo ahlu sunna diyaaran ata lameyseen ninka jareen fiiridan hubkeen iyo inay mardisaanideen militariga diyaar waay dagaal ba diyaaran safka hore insha Allah way galaan.